إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo meeshaan loogu duceynayo marxuum madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ah oday Soomaaliyeed oo dadaal qof kasta oo Soomaali ah meel kasta dalka iyo deegaanada ka joogay oo qof ama dad Soomaaliyeed wax fiican oo wax tara qabtay horta sidiisaba wuxuu mudan yahay xus iyo weyneyn iyo karaameyn iyo qadarin uu mudan yahay. madaxweyne Siilaanyana intaas dadka ugu horeeya oo kamid ahaa anigu sida hadda meela inta looga dhawaajiyay dadkii isku jiilka ahaa ma ahayn, laakiin dadkii aniga asiga waxaan laba nin oo ayagoo mas'uuliyad u haya dadka Soomaaliyeed kulmay. madaxweyne Siilaanyo dhowr mar ayaan kulanay annaga oo ka hadlaynay dabcan masaalixda Soomaalida iyo dadkan iyo dalka Soomaaliya sidii la isugu soo celin lahaa loo midayn lahaa. nin aad iyo aad u dulqaad badan, degan, aanan caroonin oo hadalladu aanay marmarka qaarkood aanan dhibsanin, dadka hadallada xanafta leh iyo hadallada kulkulul ku hadlana celiya oo maxaan ku yiraahdo muxuu u kaadiye sidaa ma ayuu ahaa. dhowr maraan aniga asiga kulanay anuu madaxweynaha isagoo madaxweynaha teerabkii hore intaba qasidaro hal wax oo ku kaftami jirnaa waxay ahayday mar walba meelahan ku kulmaynahay meel Soomaaliya ka baxsan inay ahayd waa kula kaftami jiray waxaan dhihi jiray anaa Hargeysa imaanaye madaxweyne martiqaadid adigu hadda kulli maxaa markii wuxuu dhihi jiray waa la gaari doonaa maalinteeda waana ugu martiqaaday Hargeysa u dhihi jiray. marka nin rajo iyo odaytinimo Soomaaliyeed talo iyo waano markaan is aragno nasiyo oo yiraahdo warbaasha meelaha iska hagaajiyo sidaas ka yeelo oo maxaan ku raada hore u soo socdo ayuu ahaa. marka kale isku kulanno oo maalmahaas kulanka aan kulmayno maalmihii ka horreeyay ama biilihii ka horreeyay wax fiican ay ka dhacaan Soomaaliyana na bogaadin jiray oo dhihi jiray tallaabooyinka noocaas aad qaadeen tallaabooyin fiican waaye ayuu ahaa. aad iyo aad ayaan u waxay markasta arko anigu adeeran dhihi jiray. marka waana runtii aad iyo aad ninku daysi mudan oo dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa iyo hogaamintiisa intaba dabcan hal wax oo ku kala duwanayn laba maamul oo dalkii Soomaaliya ka tirsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland yaan ahayn waa ku kala duwanayn, laakiin inaha kale wanaaga arrintaasna waxay ahayd arrin siyaasadeed oo dalkani siyaasadda markii horena kala qaartay oo kala geysay welina taagan, laakiin dadku mar walba waa isku danqanayeen waa isku maxaan ku raadaay xanuunsanayeen markii maali ay dhibaato ka jirto meesha kale waa la gubanaysa mar walba. daliilna waxay u tahay dadka Soomaaliyeed nuxurkooda meesha jirto. waxaan leeyahay markaa madaxweynaha samir iimaan Allah naga siiyo, dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan samir iimaan Allah ka siiyo oo tacsiyeynayna Soomaalida dhammaan gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay iyo gaar ahaan dadka reer Somaliland ee uu muddooyinkii dambe hogaankooda soo qabtay waa uga tacsiyeynayna. dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa uga tacsiyeynayna sida hadda boorka ka muuqata mar oo mas'uuliyad muhiim ah oo waagaas dalka ugu sarreeyay ugu muhiimsanaa ah ayuu soo qabtay raad fiican uu uga tagay meeshii uu ka soo qabtay oo joogay waagaas. marka madaxweynaha qof walba maalintiisu leeyahay maalintiisu geeriyooday ayadoo intaan oo dhamay iyo in kala badan oo Soomaali oo meel walba joogta ay runtii dhimashadiisana ka naxday tacsi iyo duco iyo maxaan ku oraa meel walba looga soo jeeday. annaguna codkanaga waxaan ku kabaynaa intaas ducada iyo wanaaga iyo Ilaahay aakhiro jannadiisa geeyo inta ugu duceynayso ayaan annaguna iyo kulankan aan isugu nimada u yahay. waana tiileeyay qofka wanaagiisa iyo waxa lagu gartaa marka uu geeriyoodo inta meedkiisa soo raacda ee qabrigiisa timaada iyo inta u tacsiyeysa ee maxaan ku raadaay u baroordiida waxay daliil u tahay tusaale u tahay sida uu qofkaasi qof wanaagsan oo samawada ah
oo ilaahay agtiisana wanaag u jiro siduu u yahay ayaa mar walba ayaa looga qaataa liira waa tilmaan iyo tusaale ayay u tahay madaxweyne Siiraayo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dal iyo dibad ayaa tacsiyo loo dhigay loo barordeeqay loona duceeyey annaguna caawa magaalada Muqdisho codkeena waxaan ku kabeynaa madaxweynaha wasiir maareeya haddaad wuxuu meesha yaani siyaasad looga hadlin laakiin siyaasaddu marmar badan waxay u baahan tahay maxaa siyaasada maxaanan siyaasad ahayn yaa kala saaris u baahan ma doonayo anigu lafsadeeda tacsidan iyo munaasabadan fiican in maxaan ku yiraahdaa la siyaasaddu mar walba culays iyo khilaaf iyo kala duwanaansho waxbay leedahay laakiin waxaan rabaa inaan fursaddan ayadan uga faa'iidaysto dadka Soomaaliyeed waqooyiga Soomaaliyeed degan tacsida ay u taalo waxaan ayagana rabaa tacsida iyo tiiraanyadana waa la wadaagaynaa farxaddii maalmo dhaweete ee doorashadii guulaysatayna waan la wadaagaynaa ayadana aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay raalli uga nahay u arkaynaa horumar Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen ay ku naaloon karaan tusaale fiicanna u noqon karo meel kastana waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed ay joogaan intaa ka dhacday Somaliland in ay meel kasta Soomaaliya ay suurtagal ka tahay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wixii fiican waa lagu daysadaayo aan lagu daysana dhammaanteen meel kastoo aan joogno ayagana waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay dhiiranaanta dulqaadka bisaylka meeshaa ka muuqda ugu hambalyeynayna dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hamigaas qaba ama soo qabtay meelo kale ilaa laga soo qabtay doorashooyin ayagana sida Puntland dowladeedii hoosoo kale sidoo kale ayaan horey ugu hambalyeynaa waan ku hambalyeynaa dalkuna inuu meeshaa isu wada raaco oo xaggaa la soo wada aado oo dadka Soomaaliyeed dadka mas'uulka u noqonaya ay maxay doortaan waa principle mabda saxa weeyaan waan ugu hambalyeynaa dadka reer waqooyi mar kale inaan tacsida idinla dhamaysto waa jeclaan laakiin howlan dhaxda uga jiraan ka soo tagay annagu jimcana ma lihin habeenna ma lihin hawshu intay taagan tahay waa taagannahay meeshii baan rabaa inaan dib ugu noqdo hawshii raggii aan kasoo tagay weli u fadhiyeen waxaan leeyahay inaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun samri iimaan ilaahay muxuu ahay gadaashiina ma fidneeyo asagana jannadiisa firdawso allah ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii iyo ehelkii samri iimaan dhammaanteedna waxaan isaga tacsiyeynaynaa sidoo kale samri iimaan aad iyo aad ayaa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu